بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan dhalin Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma wiil waxaynu ku guda jirnaa kooraska FortiGate Firewall gaar ahaan mawaadiicda VPN-ka muuqaalkan waa projectiga shanaad ee kooraska VPN-ka projectigan waxaan hadda adeegsanayaa waa Real Devices hadafka guud aan ka leeyahay projectigan ayaa ah site to site VPN-ka markaan ka dhex sameyno laba firewall sidee aan ugu active garay karnaa OSPF مثلا tusaalahaan haddii aan ku tuso topology-ga aan isticmaalayo project-kan waa isla topology-ga aan soo wada dhisnay project-kii hore ugu dambeeyay waa project-kii hore darsiga ugu dambeeyay aan soo adeegsaday Real Devices-ka waxaan isku xirnay laba firewall ee kala yaala Yemen iyo Canada waxaan ka dhex sameynay site to site VPN hadda site to site VPN-kii uu ii diyaarsan yahay haddaan ku yaro tuso midalan firewall-kan kan Canada oo haddaan galo arkaysaa site to site VPN-ka waa diyaar sidoo kale midka Yemen sidoo kale site to site VPN-ka already waa diyaar laakiin waxbaan ka bedeli doonaa labadan firewall configuration-kooda waayo waxaan hadda hadafka u yahay project-ga in aan labada firewall halka inaga aan mid kasta si gaar u soo barnay network ula xiriirayo si static ah tusaale ahaan firewall hadda yaal midla Yemen oo kale static route-kiisa aynu galnay waxaan barnay sidii ula xiriiro network ka jira Canada si la mid ah Canada-na waxaan galnay network kadibna static route waxaan barnay sidii ula xiriiro si static ahaan network ee yaala midla Yemen taa ina bedelna marka waa maxay sababta waxay tahay hadda ma isticmaalayno labkan OSP static waxaan isticmaalaynaa labada firewall waxaan u isticmaalaynaa waa OSPF waxyaabaha aan sameeyay marka koo waxa kamid ah waan muuqaalkan ama project-kan ugu talagalay koo in horta isla fahanno sidee loo edit gareeyaa loo bedeli karaa configuration VPN aan hor u haysanin ilaa hadda aniga configuration-ka VPN-ka from zero kama soo bilaabayo kaliya waxaan edit gareynayaa muuqaalkii hore project-kii hore darsiga ugu dambeeyay lab aan soo dhisay VPN-ka aan soo wada sameynay ayaan yara tacdiilinaya oo editing ku sameynaya darteed ahdaafta muuqaalkan waxaa ku kamid ah bas inaan barano sidee loo edit gareeyaa VPN connection aan hor u soo sameyn labo waxaan baranaynaa sidee IP address loo siiyaa IP address sidee loo siiyaa tunnel interface-ka ila inaga markaan VPN connection dhisnay between labada site wax IP address amaana siinin tunnelka hadda waxaan baranaynaa sida loo siiyo connection ama tunnelka u dhaxeeya labada firewall IP address saddex waxyaabo aan baranayna waxaa kamid ah oo aan hadafku yahay sidee aan markii aan tunnel IP helno aan u sameynaa OSPF configuration between labada site okay aan ku hormar marka hore edit gareenta VPN-ka iyo waxa aan ka sameyn doono hadda galo مثلا VPN-ka oo aan dhaho مثلا edit halkan aan tago مثلا su'aal ahaan oo kale waxyaabaha edit gareynayna waxaa kamid ah meesha aan ku soo qornay local subnet iyo remote subnet hadda meeshan aan dhaho su'aal ahaan hadda halkan furo inaga waxaan soo qornay local subnet iyo remote subnet inaga ayaan si manual ah configuration-ka IPsec ugu soo sameynay hadda tan waan tirayaa asalkeeda ku soo celinaya waxaan leeyahay waa 0000 kan waxaan leeyahay slide 0 in ahead ayaan jeclahay kan waxaan leeyahay waa 0000 slide 0 okay leesh aan asalka ugu soo celinaya sababtu waxay tahay labada firewall ayaan hadda waxaan doonayaa in ay iyagu share gareeyaan network-kooda isbaraan through OSPF saadarteed stable maxaan sameeyay in edit gareeyo connection-ka VPN-ka aan ka tiro local subnet-ka iyo remote subnet aan ku soo sameeyo waxaan leeyahay kadib okay si la mid ah waxaan test gareynayaa VPN connection-ka ee Canada si la mid ah hadda arkaysa isla markii VPN-ka wuxuu noqday down ayuu noqday sababta configuration-ka aan Yemen ku sameynay iyo midka hadda Canada aan ku haysan isma lahan sidoo kale kan waan bedelaynaa waxaan leenahay su'aalahan phase 2 selector-ka meeshan calaamadan edit ayaan kili ku siinayaa waan bedelayaa marka waxaan leeyahay su'aalahan halkan waxaan leeyahay 00000 ilaa 0 sidoo kale kan waxaan leeyahay 000 slide 0 كده waxaan leeyahay okay hadda ku salaad مثلا tunnelka Yemen hadda aan refresh dhaho waxa arkaysa asagan waa down hadda marka aan edit-ka ku laabto waxbaan rabaa bas inaan yaro hubiyo kaliya hoos soo baxo مثلا hadda waxa arkaysaa selector-iska inay sidoo hore ku soo laabteen local address-ka waa 00 remote address-ka waa 00 wax hadda meesha kuma qoreen maadaama hadda aan ku jiro edit gareenta sidoo haddii aad doonayso inaad edit gareyso wixii aad ku soo samaysay مثلا phase 1
edit baa hadda leedahay passwordka dib u bedeli kartaa proposalka phase 1 dib u bedeli kartaa dee meesha edit ku dhufato edit gareynta marka waa sidan waa simple sidoo kale waxaa edit gareyn kartaa gateway-ga aa ku xiran tahay iyo interface-ka kaga xiran tahay kullina dib ayaa inta u bedbedesho ayaa dhihi kartaa مثلا sidoo kale okay hadda waxaa arkaysaa marka tunnel inuu soo laabtay waayo labada firewall waxaan ka sameynay configuration kooda phase 1 waxaan u jeedaa configuration kooda VPN-ka hadda wuxuu noqday same waxaa hadda sameynaya marka aan wada arkaynaa sida loo siiyo interface-ka macna ama tunnelka sida loo siiyo IP address مثلا waxaan galay مثلا firewall-ka Yemen yaala waxaan tagayaa interface waxaan tagayaa waanka plus ayaa yaala plus kan wax kale maaha waxa meesha ku cad waa tunnel interface-ka VPN-ka sameynay double click aan ku siinayaa halkan baa siinaya marka IP address aan marka hore ku heshiino IP aan qaadanayno IP-ga tunnel aan siinayno waa tunnel address ama waa private IP address sadartii waxaan siinayaa private IP address range مثلا su'aalahan 172.16.10/7 waxaan siinayaa 11 dhanka Yemen 12 waxaan siinayaa dhanka Canada hadda meeshaan tago waxaan leeyahay IP address-ka ee Yemen wuxuu noqonayaa 172.16.11/32 ama slash baa qorin 11 kaliya qor waxa imaada marka مثلا remote IP address-ka waa maxay IP address-ka ee private-ka ama tunnel address-ka ee Canada waxaan sii doonaa wili ma aan siinin 12 subnet-ka guudna waa 30 markii aad qorayso local IP waxba subnet ma qorayso wax subnet ah ama subnet mask ah ma qoraysid laakiin marka qoraysid remote address-ka waxa qoraysaa /30 ama /24 xasba adiga network aad tunnelka siisay subnet-kiisa wax uu yahay waxaan furayaa marka ping sidaan u soo tasti gareyno oo aan IP address-kan tunnelka aan ping iskaga dhex sameyn waxaan tagayaa si lamid ah firewall-ka yaala Canada waxaan tagayaa interface-diisa waxaan tagayaa interface-ka ku xusan WAN interface-ka ayaan furayaa marka WAN interface-ka furo waxaan double click ku siinayaa marka interface-ka tunnelka waxaan siinayaa marka address ayaan siinayaa address-ka aan siinayaa waa maxay marka waxaan leeyahay 172.16.12 address-ka muqaabilkiisa ahna ee Yemen waa 172.16.11/ waxaan leeyahay 30 waxaan furayaa sidoo kale ping waxaan leeyahay okay hadda sida waxaan ku sameynaa marka oo aan ku diyaarinay labada interface waxaan siinay IP address ayaan siinay waan tasti gareynaynaa marka in spin garay karaan hadda waxaan ku jiraa aniga firewall-ka Yemen saadka korka arkayso FG Yemen ayaan ku jiraa hadda formation console hadaan furo waxaan leeyahay waxaad tasti garaysaa inaad ping ku sameyn kartid IP address-ka 172.16.12 waa tunnel IP address-ka ee yaala مثلا Canada waxaad arkaysaa hadii inuu gaari karo si lamid ah مثلا firewall-ka Canada galana asagana ping ku soo sameyn karaya hada meesha kaga baxo marka step-ka labaad ama hadafka labaad ee muuqaalkan waxaan hadda guud galayaa marka inaan configuration-ka OSPF ka sameeyno intaan configuration-ka OSPF ka sameynin marka hore waxaad meesha aan ka rabo in ila fahanto IP address waxaan interface-ka tunnelka u soo siinay sida aan u sameyn OSPF without tunnel IP OSPF ma sameyn kartid sadartid baan tunnel interface u soo siinay IP address sida marka aan dynamic routing protocols sida OSPF ama BGP aan uga dhex sameyno between labada firewall inta marka OSPF configuration-ka galeen marka hore waxaan tagayaa network kadib waxaan tagayaa static route waxaan tirayaa any static route aan project-tii hore aan ku soo sameynay ileen project-tii hore firewall-kaas waxaan barnay network asaga ka fog si static ah taa ayaan tirayaa hadda Canada baa ka tiray si lamid waxaan tagayaa مثلا su'aalahan branching مثلا aan firewall-ka Yemen waxaan tagayaa static route sidoo kale asagana waxaan ka tirayaa مثلا su'aalahan static route-kiisa ee quseeya kaliya VPN-ka iska fiiri VPN-ka quseeya ayaan ka tirayaa hadda مثلا haddaan kusoo laabto topology guud intaan OSPF ka sameynin hadda aniga computer hadda aan darsiga ka duubayo sidaan project-tii hore kusoo aragnay wuxuu yaalaa Yemen sadarteed IP-giisa waa 10.20 haddaan furo مثلا tusaalahan oo kale haddaan kan iska xiro arkaysaa connection-ka ala laha remote desktop inuu iga xirmo مثلا haddaan furo CMD haddaan furo computer hadda ii yaala Yemen aan darsiga ka duubayo aan dhaho مثلا waxaa ping ku sameysaa server-ka yaala Canada ah 10.10.0 مثلا su'aalahan 10 hadda arkaysaa inuusan shaqeynaynin ping-ki inuusan shaqeynaynin VPN connection wuu jiraa laakiin firewall-ka ma yaqaano network ka fog ma yaqaano waa inay hadda ku share gareeyaan through OSPF waa simple waxaan tagayaa مثلا su'aalahan firewall 1 ayaan galayaa waxaan tagayaa network waxaan tagayaa kadib waxaan tagayaa OSPF hadda meeshan ku soo laabto waxaan tagayaa مثلا network hadda waxaan haysaa kaliya static
اوكي هذا مثلا فاير كلا ان كان قالوا ان كان اسكا ريفرش اوكي waan kusoo laaban doonaa hadda sida ii muuqato meesha uma jeedo OSPF uma jeedo haddii مثلا OSPF iga xiran yahay feature feasibility aan jeegareeyo haddaan dhaho okay OSPF uma jeedo dhib malahan waan eegi doonaa si مثلا aan halkan ugu active gareyn lahaa marka OSPF ka uma jeedo keliya waxaan haystaa option ka ah static row waan ka bedeli doonaa dhib malahan marka intaan ay ku joojinay marka muuqaalka kaliya waxa la in xaliyo cilada ah ee laga yaabo in version ka tahay ama laga in hada iga qarsoon yahay OSPF option ka waxaan soo daahirinayaa halkan OSPF ka kadibna halkaas ayaan ka sii wadi doonaa inaan labada firewall ka dhex sameeyo OSPF had midna firewall iyal Canada oo ii diyaarsan yahay hadda gal OSPF kiisa waan sameey karna configuration OSPF kiisa marka waxaan kaliya hubinayaa halkan hadda marka la hubiyo haddaan tago midna system haddaan tago feature feasibility haddaan halkan ku qoro مثلا waxaa arkaysaa advanced routing inuu iga disable gareysan yahay hadda formation balance ah waxaa arkaysaa wuxuu ku leeyahay مثلا feature kan advanced routing ka haddii aad furto active gareyso waxaa heli doontaa option ka OSPF aan sii wada marka view messaginayo tan baa iga maqnay okay aan leeyahay kadib waxaan kusoo laabanayaa network hadda waxaa arkaysaa marka inuu ii soo baxo OSPF هذا لبض فايرول waxaan haysanaa OSPF كود waan haysanaa configuration OSPF aan u jeedaa meeshan ka sameyn lahayn hadda aan bilowna marka configuration OSPF waxaan ku bilaabayaa مثلا branchiga Yaman sida OSPF oo ugu sameeyo marka hore waa inaan siiyaa routerka ama firewallka yaal Yaman ID asaga u gaar ah waxaan ka dhigaa salahan 1.1.1.1 kani waa ID waa I iyo D xarafka D waa ID laakiin wuxuu u qormaa as IP address ahaan ayuu aad u soo muuqdaa marka IP address ma waa ID firewall kan kale ee yaala Canada asagana waxaan siinayaa 2.2.2.2 just on number مثلا u gaar ah labada firewall mid kasta si gaar ah hadaan sii wada marka dhammaan aniga projectkan oo dhan waxa wada geli doona hal area OSPF wuxuu isticmaalaa grouping ama logical groups oo area dhammaan waxa wada geli doona hal area waxaan dooranayaa inay tahay 000 okay aan leeyahay markaan configurationka dhanka Yaman dhameeyo ayaan dhanka Canada wixii aan Yaman ka sameeyno ku sameyn doonaa hadda hoos soo bax marka waxaad leeyahay مثلا waa maxay networkska aad doonayso inaad firewall kaani kaga active gareyso OSPF ka haddii inay مثلا hadaan topology-ga tago waxaan ka doonayaa firewall Yaman yaala laba network inuu ku shaqeysiyo OSPF ka ama ku active gareeyo network waa midka tunnelka ah sababta midka tunnelka OSPF loogu sameeyay waxay tahay sidii ay isku arkaan neighborkiisa ay hello isugu diraan isku arkaan isku fahmaan iyo network gudaha sidoo kale waxaan leeyahay OSPF ku active gareey sababtan waxay tahay waxaan doonayaa firewall 1 si automatic ah inuu asaga iskii ula share gareeyo this network with neighborka uu OSPF ka uu kula xiran yahay ama VPN ka ee firewall 2 ah saadarteed laba network ayaan ku active gareey doonaa marka OSPF ka network gudaha iyo network tunnelka haddaan tag meeshan waxaan leeyahay 000 area hadda wax yar kor aan soo sameynay ayaan dooranayaa waxaan leeyahay marka hore waxa igu active gareysaa this network waa 172.16.1.0/30 ku active garey OSPF ko laba waxa OSPF ku active gareysaa area-dan ay gelisaa network gudaha ee ah 192.168.110/24 labada network markaan ku active gareyno OSPF ka wuxuu sameynayaa marka OSPF wuxuu sameynayaa wuxuu ka diri doonaa labada interface-ka tunnelka iyo interface-ka LAN-ka ayuu wuxuu ka diri doonaa fariimaha OSPF ka sida hello ayuu diri doonaa every مثلا 10 seconds salahan sababta uu diray waxay tahay hello sida uu ogaado hadii dhanka kale uu jiro neighbor ama firewall ku hadlayo luqadda OSPF hadda waxa arkaysaa firewall yaal Yaman dhanka kaliya uu firewall uu ka jiro ee luqadda OSPF ku hadlayo waa dhanka tunnelka dhanka LAN-ka ma ka jiro wax firewall ah sida uu ugu hadlo luqadda tunnelka ama luqadda OSPF ka uu kaga diro hello marka hello-ga waxaan ka joojinaynaa dhanka LAN-ka waa ka joojinaynaa kaliya waxaan leenahay sax network-gan share garee hase ahaatee interface-ka LAN-ka ha ka dirin hello oo OSPF ka ha ka dirin oo qalabkan halkan jira ha mashquulinin waayo firewall aniga ka admin ahaan waxaan hubaa dhanka inaadan ka helaynin wax firewall ama router ku hadlaya luqadda OSPF ka asaga wuxuu hel u dirayaa sababtu waxay tahay wuxuu raadinayaa qof ula sheekaysto oo information ula wadaago hadda
laanka dhankiisa kama jiro qof ula sheekaysto marka waxaan leenahay inaan horta qorno ama dhanka network inaan laba network sameyno oo ku qasbannahay midi waa network aan ku active garaynayno si isku fahmaan midna waa network aan share garaynayno hase ahaatee network aan share garaynayno waa inaan ka istaajinaa helowga siduusan u dhibin resourceska qalabka kale iyo security ahaanba security ahaan waxaa laga yaabaa anigu مثلا ku xiran laanka ku xiran switchka ku soo xiran in hacker ah oo مثلا shaqaale kamid shaqaalaha shirkadda waan ahay laakiin waxaan rabaa inaan مثلا OSPF la sameeyo firewallka sidaan u ogaado networkska firewallka uu haysto oo firewallka ila soo share garay informationkiisa aan la share garay firewall information qaldan aniga hacker ahaan waxaan sameynayaa marka computerkayga waxaan u bedelayaa as a router software oo hacking ba isticmaalaya waxaan ku active garanayaa computerkayga OSPF firewallka ayaan connection la sameynaya marka arrimahaas waxaan ku block garay karnaa kow inaan interface-ka tagno oo LAN-ka ah مثلا waxaan leeyahay مثلا LAN ayaan qoraya halkan just waa magac interface-ka LAN-ka ayaan dooranayaa marka interface-ka LAN-ka doorto waxaan leeyahay مثلا passive interface passive macnaheedu waxay tahay fadlan routerow interface-ka LAN-ka waxba helo wax ka dirin marka okay dhaho hadda wuxuu firewallka joojinayaa marka inuu helo ka diro LAN interface-ka laakiin macnaheedu kama dhigno inuusan network share garaynaynin network LAN-ka ee ah 192.168.10 marba hadduu ku xusan yahay dhanka network-iska hadduu ku xusan yahay waa la share garaynaya mushkiladu waxay tahay network kasto aan ku xusno dhanka network-iska waana la share garaynaya interface-ka network-gaasna hello baa laga diri doonaa hello-gaas marka mar way ku anfacaysaa meel qaarna kuma habboona hadda inaan ka xirno hello-ga dhanka tunnelka macnaha waa qalad waa inaan u fasaxnaa waayo tunnelka waa inuu hello ka diro firewallka uu barto firewall kale waa mid aan rabno laakiin inuu LAN-ka hello ka diro waxay inoo save garaynaysaa haddii aan hello-ga ka joojino LAN-ka si hadda aan sameynay laba arrimood kow security ahaan inaan fursad siinin hackerkan oo kale ee LAN-ka ku xiran oo laga yaabo inuu firewallka la sameeyo relationship oo SPF ah kow labo waxaa taana ay naga celinaysaa ama ay yareynaysaa resourceska uu firewallkan ka qaada lahaa ka consume garay lahaa LAN-ka waayo firewall hadduu hello after every 10 second hadduu iska soo diro waa dareemi kartaa marka LAN-ka resourceskeeda ayuu mashquulinaya marka inta ii samayso keliya waxay leedahay okay hawshaadan isku dhanta waxaan inta hadda aan inta ka sameynay waxaan ku sameynayaa marka dhanka kale still iska ogaaw aniga hadafkaygu wuxuu yahay inaan ping gareeyo labada firewall hadafkaygu wuxuu yahay iska ogaaw sidoo kale in dashboard markaan dashboard tago aan network tago waxaan rabaa in ii soo muuqato firewallkani imisa network ayuu helay through OSPF hadda waxa meesha iga muuqata keliya dashboardka firewallkani wuxuu haystaa connected iyo static keliya static route oo default route ah sidoo internetka u aado aan already ku sameynay iyo keliya on interface-yada uu leeyahay network-iskooda oo connected-ka ah ayaa ka soo muuqda base routing-kiisa haddaan tagno dhanka network laakiin after OSPF-ka markay isbartaan waxaan arki doonaa in arrinta isbedeli doonto okay firewallka yaal مثلا keenay haddaan ku laabto sidoo kale aan okay dhaho OSPF ku jirna waxaan ka dhigay OSPF-kiisa 2222 hadday maana save gareen area aan sameysanayo waa hal area waa 000 kali okay aan iska leeyahay network-iska aan advertise-ka ku sameynayo ama ku active garanayo OSPF-ka waa labo sida kii hore kale mid waa network u dhaxeeya labadooda tunnelka waa daruuri saa darteed ayaan tunnelka u siinaynay asaasan ba IP address labo network gudaha hadda ay la fiirso topology مثلا Canada ku haysano waa network gudaha waa 10.10.00 saa darteed waxaan leenahay network aan ku active garanayso gudahana area 0 geli waa network-gaasna waa 10.10.0/24 siman iskaga fiiri okay ayaa leedahay marka waxaan ka xirayaa marka aniga inuu hello ka diro network-ga LAN-ka ah security ahaan iyo anigu ilaalinaya performance-ga network-ga waxaan furayaa marka halkan waxaan leeyahay LAN kadib waxaan leeyahay marka su'aal ahaan interface-ka aan ka rabo inaan hello ka xiro waa LAN-ka waxaan leeyahay passive ayaan ka dhigayaa passive macnaheedu waxay tahay hello kama diri kartid this interface laakiin kama dhigno inaan share garay karin waan share garay karnaa waxaan leeyahay okay intan ku dhamaatay configuration-ka OSPF-ka haddaan ku soo laabto marka page-kan aan refresh dhaho wax yar ayaan yara sugayaa waxaan rabaa inaan مثلا sugo inta ay labada firewall ee OSPF ahaan iska baran doonaan kadibna ay connection sameyn doonaan sida u jeeg gareeyo hadda galo meeshan routing haddaan galo dashboard ayaan ku jiraa marka iska fiiri hadda halkan galo waxaan tagayaa dhanka مثلا static halkan baan furayaa
waxaan fiirinayaa in uu leeyahay neighbor OSPF neighbor ayaan tagayaa hadda waxaa arkaysaa inaan neighbor leena neighborka iyo firewalka aan ku jiro waa midka Yemen neighborkayga waa 222 ma xasuustaa waa ID aan soo siinay firewalka yaala Canada si lamid ah haddaan tago firewalka yaala Canada aan tago dashboard after markaan dhahay apply markaan dashboard tago aan network tago waxaan ku dhufanayaa مثلا page kan hadda soo bixi doona shaashadan hadda soo bixaysa halkan kilo ku siiyo markaan kilo ku siiyo salahan waxaan tagayaa dhanka ay ku qoran tahay مثلا salahan static iyo dynamic waxaan tagayaa OSPF ayaan tagayaa halkan baa fiiriyan waxaa arkaysaa sidoo kale in configuration uu yahay full laakiin hadda mid iska fiiri mid kamid ah firewallska ilaa hadda muusan baran network aan rabin inuu barto haddu وصاير ده كلي هذا وبرتي هذا حماش إيه صباح OSPF سلم من هذان تلو داشبورد كنا دنا وحلاقة ربع إن إيسو صاروا OSPF وحين كتب أنتوني يرسبه ستيل حبا كم مكان أسجع أن يرسو كليه أوكي دي مالهن هذا كان يمن أو كلو برتي هذا كله كسي هل كان أن لو هو مثلا نتوك OSPF أهون كبرتي إتوس وحوليه أوكي أنا وحن برتي نتوك 10.10.0 هذا يوم بيجوله network an 10.10 ma garanaysaa waa network ka jira Canada ayuu through OSPF ku bartay firewalka Canada yaalan asagana wuxuu ku qasban yahay sidoo kale inuu barto network aan soo dirnay through OSPF oo ah 192.168.10 aan iska hubiyo kaliya hadii jira wax configuration ka مثلا dhibaateenaya static road ma haysano haddaan tago firewalka Yemen aan tago network kadibna aan sii tago مثلا salahan OSPF configuration kiisa هذا حن أوكي ماشي حاجة إنه قلد وكجرو network هذا أني أن advertise قصة مينايو يمن وينو هذا 192.168.10 أنا هذا محن قري 10 ينقري هذا قلد أنا كومنت الجرين أو قلد أني يدعي مركز سادرة الفايرول كيمن وإليه بينها وإليه أوكي عبدوها أني network أنا هيسن سيدي أن ضد ولو ذاكرة ما بلو ذاكرة سادرة الفايرول كنا مكان قلناي أن تجني داشبورد network أن تجني كما soo muuqdo inuu helay wax OSPF information ah way information kala soo diri lahaa ay yamanka imaan lahayd waa qaldan tahay waa inaan bedelnaa marka each box sameynaysa waxa leena nagaraal noqo network advertise ku sameynayso waa 10.0 okay aan leh hadda wuxuu haystaa marka waxa uu advertise gareeyo waayo networkan wuxuu kamid yahay network iska ku xiriirsan firewallka hadda waxay radan u sugno aan page iska dhaho refresh waxa arki doonaa marka hadda meeshan informationka waxa ku soo baxay midna meesha Canada waxa inoo soo baxay inuu helay sidoo kale OSPF information firewalka yaala Canada wuxuu leeyahay okay ana hadda waxa li baray network ah 192.168.10 hadda waxaan sameyn karnaa marka binki waan sameyn karnaa waa hadda policyga wax mushkilad nagama haysato policyga projectiga hore aan soo sameeyay ay policygi still waa ii tala oo مثلا maana bedelin dhanka policyga waan haysanaa oo firewalka soo waxaan haysanaa laba policy oranaysa from LAN to VPN iyo from VPN to LAN hada kan iska dhaw refresh aan tago firewalka Yemen sidoo kale aan tago dhanka policygiisa ama firewall policygiisa sidoo kale waxa arkaysaa meeshan inaan haysano laba policy okay aan yara soo kaliya labada firewall kan hada soo mar rabo okay hada waxaan haysanaa from LAN to VPN iyo from VPN to LAN waan haysanaa firewalka Yemen sidoo kale asagana waan haysanaa labada from LAN to VPN iyo from VPN to LAN waan haysanaa hada waxa sameyn karnaa ping waan sameyn karnaa hada daan tago wax yar ka waxaan arkaynay markaan serverka inuu yaala Canada markaan ping ku sameeynay muusan shaqeynaynin hada daan dhaho ping hada uu shaqeynay hada connection ayaan la leenahay saadir hada waxaan furi karaa remote desktop hadaan furo hadana computer hadaan isticmaalayo shaashada u jeedaan هذا remote desktop فرو سيدا project hore aan sameynayba aan dhaho مثلا 010 remote desktop ku samee 10.10.0.10 waxa arkaysa inuu galay mar laakiin hadda weyga iyo qaabka labadan firewall ee kala yaala Yemen iyo Canada ay informationka ku wadaagayaan informationka ka hadlayo waa local networks ay ku wadaagayaan waa through OSPF waxa laakiin shardi ahaa sidan OSPF kaga dhax sameeyna between labada firewall inaan siino tunnel address inaan siino waana baranay tunnel address loo siiyo laakiin su'aasha soo weydiinayna waxay tahay Cabdiwahaab maxaan isaga kaftoomi weynay static route hore u soo baranay oo maxay hadda ina gelinay OSPF kan iyo arrimaha maxaan ka faa'iideynaa taadan kula dul maro intaan muuqaalkan gabagabeynin hadda
aan network isticmaalayno OSPF oo aan firewall kasta ku sameyn OSPF haddii ay dhacdo mustaqbalan inaan firewallka Yemen yaalo tusaale ahaan oo kale aan kusoo biiriyo network hor leh oo cusub مثلا network hor leh oo cusub waxaa dhahdaa kasoo qaadba oo 192.168.20/24 waa network gudaha ayaan kusoo biiriyay networkan gudaha sida u baro firewall 2 ee Canada yaala uma baahnina VPN configuration marka la kusoo celiyo ina static loo sameeyo just waxaan update garanayaa waxaan tagayaa firewallka Yemen ee network cusub lagu soo biiriyay ayaan tagayaa waxaan sii tagayaa marka meesha ku qoran tahay OSPF waxaan tagayaa meesha ku qoran tahay networks halkan baa ku biirinaya marka network cusub ee kusoo biiray waxaan leeyahay firewall Yemen yaalo fadlan network cusub ee hadda adiga aad lagu soo biiriyana aad fartaas ku samey hadda network ma jiro aad fartaas kuma sameynaya marka laakiin waa maxay marka midna ciladii inaga haystay markaan joognay dhanka static ahaan haddii midna aan kuwada lahayn inaga VPN configuration-ka sida aan kusoo wadnay ee ahaa inaan template isticmaalno customization kan ma haysan lahaynba sidoo kale markii aad VPN tunnelka dhisayso ayaa waxa cadeynaysa local iyo remote maadaama marka VPN sameeynaysa local network iyo remote sabab aad tunnel configuration ka dhexdiisa kusoo cadeysay waa dib marka network cusub kusoo biiriso inaad tunnelska oo idil ah haysato inaad mid kas update garayso waa dib laakiin marka OSPF isticmaalayso firewall kasto network cusub ee kusoo biira tunnelka ma bal taabanayo configuration-ka tunnelka waa stable kali on OSPF configuration-ka galeen waxa leenahay fadlan this new network at fartaas ku samee marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad muuqaalkan ka faa'iideen waxaan kulmi doonaa project-kii kan lamid ah project-ka ayaan sii wadi doonaa insha Allah inta kulmi doona dirsi soo socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh